waxaad ogtihiin marxaladaha aan u dambeeyay wixii badnaa aan soo dhisnay noloshii aan soo dhisnay tacliintii nabadgelyadii kala dambeyntii dowladnimadii waxaa halis ku ah dad doonaya inay nolosha dadka u diidaan oo argagixiso ah oo runtii habeen iyo maalin u soo jeeda dadka noloshooda iyo deganaanshahooda inay dhumiyaan waxa aan qabsanay macno tari mayso haddaanan difaacan waxaa la rabaa dadka reer puntland iyo dadka soomaaliyeedba inay iska kaashadaan siday u difaacan lahaayeen noloshooda waad garanaysaan nolol darrada iyo burburku wixii aan ku soo marnay duruufihii la soo maray shalay haddii magaalooyinkii waaweyn aqaasan caasimadii laga soo qaxay oo garoowe iyo meela wax ka dhisan yihiin imin haddii hadda magaalooyinka puntland laga qaxo xaggee loo qaxaaya haddaad su-aasha u baahan in la isweydiiyo waa taas runtii waad ogtihiin meel dambe oo loo qaxaayo ma jirto noloshii miyiga cimilada isbedelaysa dhibaato badan baa ka taagan magaalooyin la isugu soo gurman karaa jirtay laakiin haddii intii la isqixiyo meel la isugu soo gurman waaye ay dhacdo oo dalka la kala jarjaro oo dadka la iska hor keeno waa dhibaato xoog marka khatarta xagjirnimada iyo arrimaha ay wadaan dadka nolosha u ogolayn waxaa loo baahan yahay in la iska kaashado waxaa la rabaa bulshada oo dhan inay qeyb ka qaadato inay nabadgelyada ka wada shaqayso oo aysan ahayn hay-adaha nabadgelyada oo keliya aysan ahayn bulshadu inay nabadgelyada gacan weyn ka geysato markaasaa nolola jiraysa markaasaa horumar laga sheekeyn karaa markaasaa waxqabad dhaqaale u imaan karaa laakiin haddaan nabadi jirin nolol ma jirayso marka waxaan aada bulshada reer puntland gaar ahaan iyo guud ahaan soomaaliyeedba halka uga jeedinayaa nabadgelyadu inaysan noqon wax la siyaasadeeyo ama lagu gorgortamo ama lagu kala aragti duwanaado waayo waa noloshii asaaskeeda waa inay dadku kala soocaan kala aragti duwanaanta siyaasadeed iyo deganaanta dowladnimo ama midda saldhigga u ah qofka noloshiisa in badan baan aragnaa dadka qeybtiis inay aragti siyaasadeed ama fikir ay leeyihiin ay ku doonayaan inay dadka kulaayaan oo baqaan marka waxaan rajaynayaa inaan dadkaasna loo baqin rabo inay dadka noloshooda halis geliyaan la iska dhiciyo meel looga soo wada jeesto aan loo dhaga nuglaan waxaan aada uga xumahay in deegaanada qeybtood khaasatan magaalooyinka waaweyn ee ganacsiga ay u dhaga nuglaadeen oo ay halista waxaa puntland ceebku ah in la yidhaahdo laba kooxood oo awal isku mid ahaabaa gacan ku-haynta deegaanadeena isku haysta haddana waa khatar arrintaas u baahan in meel looga soo wada jeesto dhammaan dowladdu waxay diyaar u tahay inay dhinaca nabadgelyada ahmiyad weyn saarto sida horumarka muddada dheer laga soo shaqaynayay loo ilaashado